mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag gaar ahaan beesha Basanbuur ayaa maanta magaalada Ceerigaabo ku soo bandhigtay 3 murashax kuwaas oo kala tartami doona golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee doorashooyinka soo socda. Murashaxiintaas oo ay ka mid yihiin aqoon-yahan Axmed Cabdikariin Ducaale oo u sharxan golaha wakiilada Somaliland iyo Saciid Jibriil Xasan iyo Maxamuud Cawaale oo tartami doona golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo ayaa munaasabad ballaaran oo loo qabtay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag waayeelka iyo waxgaradka beesha murashaxiintaasi ka soo jeedaan aqoon-yahan waxgarad haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay sulaadiinta cuqaasha waayeelka iyo waxgaradka beesha murashaxiintaasi keentay oo halkaasi ka caddeeyeen beeshu isku raacsan tahay murashaxiintan. waxaan leeyahay xafladda nimankaan u dhignay waanu idinku soo wareejinay ee xisbiga kulmiyow war adiguna naga guddoon beesha reerkana waxaan leeyahay sidii wanaagsaneed baynu yeelnay sidii calool fiyoobad bay yeelnay waa inaan hal cod inaga khasaaroobin hal cod qiimaha iyo qaayaha leh waxa aanu ku soo dhawaynaynaa saddexda xildhibaan waxaanu ku soo xullay marka hore Muuse Abokor marka xigana beesha Basanbuur xafladda wax khilaaf oo ka jiraan ma jiraan waa wax la isku raacsan yahay qabiilku isku raacsan yahay waxa sida horeba loo sheegay halkan aanu ku soo dhaweynay musharaxiinta saddexda musharax ee ka soo jeeda beesha Basanbuur Axmed Cabdikariin Ducaale wuxuu sharaxan yahay golaha baarlamaanka Saciid Jibriil Xasan wuxuu sharaxan yahay golaha deegaanka Maxamuud Cawaale Dayuurad wuxuu sharaxan yahay golaha deegaanka waxaanu halkan ku shaacinaynaa haddii aanu nahay beelweynta Muuse Abokor ee galbeedka degmada Ceerigaabo gaar ahaan beelweynta Basanbuur waxaanu maanta halkan ku shaacinaynaa 3 xildhibaan oo u sharaxan oo u tartamaya golaha baarlamaanka iyo golaha degmada Ceerigaabo wada tashi badan kadib is arag iyo muwaafaqo kadib waxaanu halka u keenay maanta inaanu ka shaacino 3 xildhibaan degmadan Ceerigaabo oo 2 murashax ay u sharaxan yihiin golaha deegaanka iyo golaha sare ee baarlamaanka xubin u sharaxan waa u abaal gudi doonaan sida muuqata waa rag xula rag aanu soo xulay dhalinyarada iyo bulshada reer Ceerigaabo hanala doortaan xildhibaanadaas waa kuwa anfici doona gobolka Sanaag musharaxiintaas Axmed Cabdikariin Ducaale oo u sharaxan golaha baarlamaanka Saciid Jibriil Xasan oo u sharaxan golaha deegaanka iyo Maxamuud Cawaale Xuseen oo u sharaxan golaha deegaanka saddexda musharax ilaahay ku guuleeyo saddexdooda waxaan leeyahay guul ilaahay idinka dhigo kuwii guuleysta waxa codayaana waa dumar iyo dhalinyaro codka iyagana war idin la garab taaganahay hadeer waxaan soo xullay 3 xildhibaan oo la isku raacay oo la soo shaandheeyay oo si fiican looga soo baaraandegay waxa weeye Axmed Cabdikariin Xaaji Ducaale Saciid Jibriil Xasan Faarax Maxamuud Cawaale Xuseen hiiliyo hoobo waan la garab taaganahay waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay murashaxiinta madashaasi lagu shaacinayay oo halkaasi ka cadeeyay wax qabadkooda annagoon oranayn badaanu macaaninayna waxaanu ballan qaadaynaa wixii awoodayada ah ee golaha sharci dejinta aanu tartamayo khuseeya aniga Axmed ahaan inaan ka shaqayn doono sharciga sidii magaranaysa sharciyada iyo cadaaladda loogu shaqayn lahaa inaan si wanaagsan aan uga soo shaqayn doono gaar ahaan gobolka Sanaag oo had iyo jeer cabasho iyo magaranaysa farabadan ay ka muuqato waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka qaban doono ilaahay idinkuna igu soo duceeya anugu waxaan ballan qaadayaa haddaba haddii aan soo baxo codkay siisaan ilaahay hortiina waxaan ku ballan qaadayaa inaan u adeego danyarta iyo masaakiinta inaan u adeego oo wax u qabto waa mudnaanta koowaad aad baan idinka mahad celinaynaa sidaad noo soo dhaweyseen waxaan u mahad celinaynaa waayeelkana soo xulay laakiin waxaan isku soo sharaxnay oo na soo sharaxay cuqaasha iyo dhammaan reerka oo isku raacsan inaanu uga tartanno golaha deegaanka ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo mar labaad iyo mar saddexaad baan hambalyeynayaa dhammaan taageerayaashayada waxaan ka rajaynayaa
inay guul iyo maxaanku idhaahdaay ay codka na siiyaan. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax iyo Cuqaashi iyo marti sharaftii halkaasi ka soo qayb gashay oo sheegay inay beeshaasi la qaateen murashaxiinta ay keeneen. waa shaacinta saddexda xildhibaan ee hareeraha taagan oo laga shaacinayo xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee kulmiye. saddexda xildhibaan oo kala ah xildhibaan golaha wakiilada iyo laba xildhibaan oo golaha deegaanka oo ay soo xuleen oo soo imaamadeen oo ka soo tashadeen oo in badan la maqnaadeen beesha halkan suldaanka iyo jiifafka iyo cuqaasha iyo xildhibaanada hogaaminayaan. ugu horeyn anoo ka wakiila xisbiga kulmiye si rasmi ah ayaan u aqbalay xildhibaanada beeshaasi soo sharaxeen. anigu waxaan ka mid ahaa musharaxiintii dafcaddii hore xisbiga kulmiye iska shaaciyey. waxbaanu tabaynay markaanu shaacinay wixii aanu tabaynay maanta ayay noo muuqatay oo xisbiga waxaanu lahayn war xisbiga miyaa laga cararay laakiin waxaan leenahay maanta war maanta ay shidan tahay xisbigu maanta uu shidan yahay baanu leenahay. beeshan wax sharaxaysa waa beelaha laga yaqaanaa gobolka. wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan xildhibaankii hore golaha wuxuu ku soo baxay 9,000 iyo dheeraad cod. wuxuu noqday xildhibaankii Soomaaliland ugu codka badnaa ee Soomaaliland dhammaan xildhibaanada ugu cod badnaa. beeshan way soo saari kartaa xildhibaan iyo 2 iyo 3 iyo 4 marka koowaad waa xul marka labaadna waxa wadaa beel ka badan ama ku filan ama ka badan. si kastaba ha ahaatee munaasabadii shaacinta xildhibaanadan ayaa ugu dambeyntii waxay kusoo dhammaatay jawi xasiloon iyadoo halkaasina dhalinyarta iyo hidaha dhaqanku ay kusoo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo munaasabadaasi ka qayb ahaa. Wayoonis Sheekh Axmed, Star TV, Ceerigaabo.